maandeeq waxay ahayd riyo waxay samaanta tahay dhab boosaaso yani 5 bilood ka hor inta aan maandeeq la furin maysan lahayn dadku meel sidaas oo kale isugu yimaadaan laakiin maanta qofkii booqda oo taga wuxuu dareemayaa baahida ay bulshadu u qabtay xarun noocan oo kale ah in magaalada boosaaso laga hirgeliyo laga sameeyo waxayna noqotay meel dad badan ay isugu yimaadaan dad badan aan is arag oo muddo kala moognaa ay isku arkaan oo kala warqaataan oo kala qaataan waxa waajib ah oo qof kastoo bini aadan ah damirkiisu siinaya qofka wax wanaagsan qabtay in loo hambaliyeeyo halkaan boosaaso meel noocan oo kala ah oo youth center maysan lahayn waxa isugu yimaada bulsho badan oo dhalinyaro ah aniga tusaale ahaan xilliyada aan fasaxa leeyahay oo kale waa gaarigaygan soo kaxaystaa waa imaadaa kaligeyba waa isaga qaxweeyaa mar familkaygan soo kaxaystaa waa meel aad u qiimo badan run ahaantii waxaana jeclaan lahaa meelaha sidaan oo kale ah in la badiyo galabtii waa aragtaa jawgu suu kala degan yahay meeshaan qaxwahayga hadda ii maqan maasha Allah dadku dhalinyaradu waa la wada fadhiyaayo jawi degan peace and prosperity waa lagu jiraa xaqiiqdii maanta waxaan ku suganahay garoonka kubadda cagta maandeeq aad baan u faraxsanahay maadaama ay dhalinyaradii isku hawleysay dhalinyarada sportska gobolka bari ay u furaan meelo ay kubaddooda iyo xirfadooda ay ku bandhigaan xaqiiqdii aad aan ugu faraxsanahay farxadeena lama soo koobi karo waxaan dadka ugu sii baaqayaa ganacsatada dadkan hadda ku dayashay mudan yihiin marka inay ku daydaan aan ugu baaqayaa insha Allah waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda East Africa qaybteeda Public Health and Nutrition maaha kan wax lagu qoro saboorda lagu qoro oo laga faa'iideysto maaha cilmiga aad u raadiso weeye oo aad si hadda buugan gacanta ku hayo kale waa maasooyin badan baa ku jira oo aad baan ula dhacay ruuxaygu si aad iyo aad ay isu jiidatay sidaas kale mugtooda waxa uu boorinayaa inay ka sii badiyaan oo faracyo kale sii sameeyaan oo ay bulshada u soo kaban lahaayeen oo arday badan iyo bulshada shacab badan oo heli lahaayeen oo meesha isku imaan lahaayeen maandeeq waxay ka kooban tahay ilaa 9 qaybood bay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay hoolal shirar ama munaasabadaha xafladaha loogu talagalay waxay kaloo ka kooban tahay xaruntu oo ay leedahay maktabad wax lagu akhristo aan ugu talagalnay ardayda inay yimaadaan waxna ku akhriyaan waana muhiim in dadku ay wax akhriyaan waxay kaloo xaruntu leedahay xafiisyo maamul oo xarunta intaas la eg oo dad badan ay isugu imaanayaan oo kun gaaraya ay ka badanba waxay u baahan tahay xafiisyo maamul bay u baahan tahay waxa kaloo jirta qayb tababarada kombiyuutarada ama IT-ga oo dhalinyaradeenu aan ugu talagalnay in ay ku tababartaan teknolojiyadda iyo sida loo sameeyo waxay kaloo leedahay qayb maqaaxiyo iyo cafeteria oo dadku ay adeegyada cuntada iyo sharaabka iyo kulli ay ka helaan waxay leedahay sidoo kale goobo lagu caweeyo iyo beero oo waliba aanu ugu talagalnay inay noqoto meel standard ah oo dadku ay fariisan karaan
oo magaalada Boosaaso waa magaalo kulul oo marka inay ka helaan meel ay markay soo kulaadaan ama shaqooyinka ka soo rawaxaan ay imaan karaan ay ku nasan karaan oo marka beero nasasho ayaa sidoo kale ku yaala iyo meelo loogu talagalay familiyada iyo qoysasku inay yimaadaan oo ay ku caweeyaan isla markaasna ay ku arinsadaan waxay leedahay garoomo oo kubadda loogu talagalay cagta ah oo laba qaybood ah waxay leedahay gym oo dhalinyaradu muxuu ahaa jirdhiska ay ku sameynayaan iyo qaybta caruurta oo runtii caruurta aad uga faa'iideysato intaasoo adeeg iyo surface oo xarunta ay bixinayso hadafka tadaamun ay u sameysay wuxuu ahaa hadaf in bulshadu ay ka faa'iideysato